وموقالka nin caddaan ah oo minshaar ku cayrsanaya qoys muslimiin ah. goobtu waa dalka Ingiriiska oo maalmahan ay xaaladiisu faraha ka baxday. dhacdo ku bilaabatay carruur la dilay oo isku beddeshay kacdoon ay caddaanka dalkaasi ku dalbanayaan in dadka muslimiinta ah iyo soogalootigu ay dhulkooda ka baxaan. waxaa la weeraray masaajido, la burburiyey hodheello ay degganaayeen dad qaxooti ahaa, waxaana la baliliqaystay boqolaal goobo ganacsi ah oo ay lahaayeen muslimiintu. booliiska Ingiriisku ilaa hadda way xakameyn kari waayeen kacdoonkan. haddaba maxaa ka socda Ingiriiska? xagee wax ka bilowdeen? mase laga yaabaa in dalkaasi ay ka qarxaan dagaallo sokeeye oo u dhexeeya kiristanka iyo muslimiinta? dhammaan su'aalahan ayaynu ku qaadaadhigi doonnaa muuqaalkeenna maanta. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waabari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. inta aynan u gelin muuqaalkeenna, inta lagu jiro bisha 8aad waxaynu qiimo dhimis ballaaran ku samaynay koorsooyinka website-keenna Waabari Academy, maadaama bishan ay tahay bishii ugu dambaysay ee ay ardayda iskoolada iyo jaamacadaha dhigata fasax yihiin. waxaan qiimo dhimis 30% ah ku samaynay koorsooyinkeenna si aad fursad ugu heshaan barashada xirfad cusub. tusaale ahaan koorsada Premiere Pro oo uu qiimaheedu ahaa $13 waxaad ku iibsan kartaa $9 oo keliya. sidaasi oo kale koorsooyinkeenna Photoshop, WordPress, CapCut iyo siraha muuqaal sameyntaba waxaad ku heli doontaa qiimo dhimis 30% ah. qiimo dhimistan waxay ku eg tahay dhammaadka bishan. iska diiwaangeli hadda WhatsApp lambarka ka muuqda shaashadda, sidoo kalena aad ka heli doontid kommentiga ugu horeeya. mahadsanidin. 29 bishii 7aad ee aynu soo dhaafnay, dalka Ingiriiska waxaa ka dhacay weerar lagu qaaday goob ay ku xafladeynayeen carruur yaryar. waxaa la dilay ku dhowaad 3 carruur ah, halka ay ku dhaawacmeen 8 kale. 3 ilme ee dhintay waxay ahaayeen gabdho da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 9 sano. weerarkan oo fajac ku noqday dadyowga Ingiriiska ayaa markii uu dhacay ciidanka dalkaasi bilaabeen inay raadiyaan qofkii ka dambeeyey. kadibna waxay soo xireen inan jira 17 sano oo lagu eedeeyey inuu ahaa qofka ka dambeeyey weerarkan. markii la soo qabtay inankan ayaa wargeys la yiraahdo 3 Now oo gadaal laga ogaan doono inuu yahay wargeys fadhigiisu yahay Ruushka oo feeg ama been abuur ah, ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay in inanka ka dambeeyey duulaankan uu yahay soogalooti dalka tahriib ku yimid, muslimna ah, in muddo ahna ay korjoogteen ku hayeen booliiska oo horeyba looga shakisanaa. markii warkan la maqlayba waxaa bilowday mudaharaadyo rabshado wata oo si gaara loogu bartilmaameedsanayo muslimiinta iyo soogalootigaba. warkan ayuu wargeyska Times ee ka soo baxa Ingiriiska ku tilmaamay inuu ahaa warkii been abuur ee ugu saamaynta badnaa ee soo maray Ingiriiska, sida dhaqsiyaha badanna u geliyey dalka xaalad adag. dibadbaxyadu bilowgeedii hore waxay ka bilowdeen magaalo la yiraahdo Southport, kadibna waxay ku fideen magaalooyinka waaweyn sida Liverpool, Manchester iyo Bristol. maalintii xigtay dibadbaxyadu waxay gaareen xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo afaafkiisa hore kumanaan caraysan ay ku hor mudaharaadeen. mudaharaadyaddan rabshadaysan ayaa sii fiday ilaa ay gaareen in ka badan 20 deegaan oo kala duwan. dibadbaxayaashan ayaa si gaara u bartilmaameedsanayay muslimiinta iyo dadka soogalootiga ah. waxay gubeen gawaadhidii booliiska, hodheelladii iyo goobihii ganacsiga, waxayna dhagaxyo iyo dhallooyin ku tuurayeen masaajidda ay muslimiintu ku cibaadaysanayeen. ku dhowaad 400 oo qof ayay booliisku sheegeen inay u xireen dibadbaxyadan, laakiin ilaa hadda ma noqon tallaabo ka hor istaagtay xagjiriintan caraysan inay joojiyaan dibadbaxyada. haddaba aynu u nimaanno su'aasha ah, yaa ka dambeeyey kicinta dadkan? ninkan oo loo yaqaano Tommy Robinson ayaa lagu eedeeyey inuu yahay maskaxdii ka dambaysay kacdoonnada hadda ka socda Ingiriiska, waxayna isaga iyo kooxdiisuba sabab u ahaayeen faafinta muuqaaladii been abuurka ahaa ee sheegayey in ninka wax dilay uu yahay muslim soogalooti ah oo ka yimid qaaradda Afrika. ninkan waxaynu u jeednaa Robinson ayaa ka mid ah xagjirinta midigta fog, waxayna saxaafadda Ingiriiska qaybtood daabaceen inuu tan iyo 2009 si hoose ula shaqayn jiray Israa'iil si looga abuuro Ingiriiska xaalad islaam nacayb oo lagu ugaarsanayo dadka muslimiinta ah ee jooga dalkaas. waxayna dadka falanqeeya dhacdooyinka ka socda Ingiriiska si toos ah u sheegaan in qalalaasahan ay gadaal ka riixayaan Yahuudda
oo doonaysa inay aamusiyaan mudaharaadyadii xoogganaa ee ka dhacay Ingiriiska tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, iyo sidoo kale xoojinta islaamofobiyada ama cabsida laga qabo islaamka, iyada oo dadka caddaanka ah gaar ahaan kuwooda diidan joogitaanka soogolootiga loo sawirayo inay muslimiintu amniga iyo wada noolaanshiyaha ka jiray Ingiriiska halis ku yihiin. sidoo kale waxa warbaahinta qabsatay waraysi uu bixiyey ninkan siiyeyna TV-ga loo yaqaano kanaal 13 ee laga leeyahay Israa'iil. waraysigan ayuu ku sheegay inuu ka careysan yahay inaan cidna rumaysanayn hadalladiisa, aaminsan yahayna in haddii Israa'iil laga adkaado dagaalka ay hadda ku jirto ay muslimiintu u soo jihaysan doonaan Ingiriiska iyo galbeedka si ay iyagana uga awood roonaadaan. ninkan ayaa horey loo xiray dhowr jeer, iyada oo markasta lagu soo eedeeyey dembiye kala duwan. tusaale ahaan 2013 wuxuu xirnaa 10 bilood, waxaana lagu eedeeyey inuu adeegsaday baasaboort uu leeyahay qof kale si uu u galo Maraykanka. sidoo kale waxaa mar kale la xiray 2014. arrinta yaab kale waa in ninkani leeyahay taageero xooggan oo u badan xag jirka midigta fog ee Ingiriiska. mar kasta oo la xirana waxayba u ururiyaan dhaqaale kor u dhaafaya malaayiin dollar. sidoo kalena waxay u qabtaan abukaatayaal u dooda. Ingiriiska ayaa sanooyinkii u dambeeyey waxaa ku baahayay islaam nacaybka ama waxa loo yaqaano islaamofobiyada. muslimiinta ku nool dalkan ayaa lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 4 milyan, waxayna miisaan dhaqaale iyo siyaasadeed ku leeyihiin gudaha dalka, taasi oo ka caraysiisay caddaanka oo u arkay inay halis ku yihiin fursadihii ay heli lahaayeen. waxayna dadka falanqeeya siyaasadda dalkan ku eedayaan in shacabku marka ay rabaan inay dhaliilaan dawladda ama ay habacsanaan ka arkaan ay u sii maraan muslimiinta oo ay ku dhaliilaan in muslimiinta wax walba gacanta loo geliyey oo ay dalka la wareegayaan, taasi oo ka dhigtay dalkan mid sanadba sanadka ka dambeeya u sii jihaysta dhabbada foosha xun ee ku suntan islaam nacaybka ee uu horay u qaaday Faransiisku. shabakadda BBC-da ayaa daabacday in inanka dilkan geystay uu ku dhashay deegaanka Cardiff, waalidkiisuna ay asalkoodii hore ka yimaadeen dalka Rwanda una soo guureen deegaanka Southport ee uu falkani ka dhacay sanadkii 2013. waxayna sheegeen maadaama uu inankani ka yar yahay 18 sano inaysan magaciisa iyo sawirkiisa faafin karin oo uusan qaanuunku ogolayn. halka wax ee ay sheegi karaanna ay tahay inuu ku dhashay Ingiriiska oo uusan ahayn soogalooti sida la suuq geeyey. aynu u nimaanno warbaahintii bunbuunisay dhacdadan ee 3 Now. wargeyska The Times ayaa daabacay in warbaahintani ay tahay mid fari ku gudan tahay. waa midee marka baaritaan lagu sameeyey adreeska ama meesha laga adeegsanayo website-kan waxaa soo baxaya adreeska goob ku diiwaan gashan 2 nin oo Bakistaani ah. sidoo kale warbaahintan waxaynu u jeednaa 3 Now ayaa 12 sano ka hor ku bilaabatay kanaal YouTube oo lagu soo tabin jiray ciyaaryahanno Raashiyaan ah oo tartanno ka qaybgalaya ka hor intaysan 5 sano ka hor hal mar isbedelin, bilaabinna soo gudbinta warar hadalhayn badan abuuray oo badankood sal iyo raatoona aan lahayn. sidoo kale waxay xuseen in markii hore uu magaceedu ahaa Fox 3 Now ka hor intaysan shabakadda Fox Media ka gudbin gal dacwadeed ay ku eedeysay inay magaceeda sumcad dilayso. dacwaddan ayaa ku khasabtay inay bedelaan magaca, qaataanna sumadda ay hadda adeegsadaan ee 3 Now, waxayna ka diiwaan gashan tahay Jamhuuriyadda Lithuania. wargeyskan iyo wargeysyada la midka ah ayaa baansiin ku sii shiday dabkii ka holcayay Ingiriiska sanadihii u dambeeyey, kaasi oo cinwaankiisu ahaa islaam nacayb ama islaamofobia. muuqaalada ay warbaahintu ka soo tabinaysay mudaharaaadyadan ayaa ku tusaya heerka argagaxa leh ee uu nacaybka dadkani gaarsiisan yahay. muuqaalada qaybtood ayaa waxaa ka soo muuqanaya nin madow ah oo ay koox caddaan xag jir ah isugu tegayaan oo ay goob fagaare ah oo loo soo damaashaad tago ku qaraacayaan. sidoo kale magaalada Manchester oo ay dhacdadan hore ka dhacday waxaa sidoo kale laga soo tabiyey muuqaallo ay ka muuqdaan 3 gabdhood oo muslimiin ah oo candhuufo lagu tufayo kadibna la isku dayayo in xijaabka xoog looga saaro. sidoo kale tiro ma lahan inta qof ee lagula kacay tacadiyooyin isugu jira jirdil iyo in mindi lagu dhaawaco. dadka ugu badan ee dhibaatadu qabsatay waa dadka ka shaqeeya goobaha babliga ah sida howlwadeenada caafimaadka, tagsiilayaasha iyo dadka la midka ah. wuxuuna hadda Ingiriisku wajahayaa xaalad aan in muddo ah ka dhicin dalkan. haddaba ma laga yaabaa in shaqaaqooyinkan ay isku beddelaan dagaal diimeed xag jirkan caddaanka ah
iyo dadka muslimiinta ah dhex mara si aragtidaada daawade maxay kula tahay sababta keenaysa cabsida sii siyaadaysa ee xagjirka midigta fog ee galbeedku ka qabaan muslimiinta. nagula wadaag aragtidaada qaybta hoose ee komentiyada. haddii uu ku qanciyey muuqaalkuna ha ilaawin inaad like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. mahadsanidin.